Ramadaan mubaarak daawadayaal halkani waa BBC kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aynu ku eegayno maadaama aan ku guda jirno qaybihii hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaynu eegi doonaa bishan fadligeeda iyo sida dadka muslimiinta ay uga faa'iideysan karaan si gaar ah dalka Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalida waxaa ka jira abaaro xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka waxaynu sidoo kale sheekha weydiin doonaa oo barnaamijkan marti oo noogu yahay Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo Muqdisho kaga jira qadka isla markaana ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed dadka sida ay isku caawin karaan xilligan adag ee lagu jiro iyo dabcan fadliga qaybaha hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Sheekh Bashiir kusoo dhawow barnaamijka. waa dhawahay barakallahu fiik jazakallahu khayr. waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada waxaan rabnaa marka hore si kooban bal qaybihii hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu ku guda jirnaa si kooban dadka muslimiinta ee fursadda u helay bishan inay soo gaaraan oo inagu aan ka mid nahay maxaa looga baahan yahay xilligan oo kale. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. bisha Ramadaan waa fursad Ilaahay uu dadka muslimiinta u siiyay oo ku waajibiyay inay maaragtay soomaan oo cibaadaystaan si Allah ka cabsigooda uu ziyaado insha Allah ta'ala. سيدي إلهي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مركا أنا عبادة صومك عبادة قديمة وضدكي كونك صوم مري وأهل الإيمان كأها وأنبياء الراعي الوفرض يلي وأنا عبادة الله كعبسك زيادة سه وحوتي سويان مركا ذلك المسلمين تا وصوماليات قارهان يقف كسط مسلم له وبشان ما إلهي أسيي تانيس وعمري أسيي ضدان بعد انتي أيوة بشان مارتي جعلائن اللي تشوغان الملك اللي قفا إذا يستوى إلهي لو دوادو وعبادة الله بضيو أيان لو قدبون وحانا لو قدبون إن مارتي لغصوهم وحكستا وداوعة هي دين تدا داوعية وأخلاق تدا داوعية إن لغصوهم هذا ربا صومكو كليا وانتدا لغتاقو عبتانك لغتاقو ماهان صومكو وحويان ونفط وحي هربته حن laga celiyo weeyaan waa in laga sabro wax kasto macaasi ah iyo in lagu sabro lagu adkaysto wax kasto taacada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ama ha noqoto xaqullah subhanahu wa ta'ala ama ha noqoto xaqun naas in lagu dadaalo ayaa bisha laga faa'iideysanaya waana fursad balaaran oo aan maaragtay aan soo maxaan ku raahaa ay naadir ay tahay ama sanadkii hal mar la soo maraysa oo dadka dhan aysan soo wada gaaraynin markii laga faa'iideysto oo waqtiga iyo maaragtay cibaadada iyo ihsaanka lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay. waayahay sheekh awalba dadku waa cibaadeysan jireen laakiin waxyaabaha goonida ah u baahan in xoog la saaro markaan oo kale si kooban maxaa kamid ah? waxaa kamid ah horta cibaadada soonka oo bishan ay la gaar tahay waa cibaado macna gaar ah leh oo maaragtay Ilaahay uu maxaan ku rahaa bishan ugu talagalay uu waajibiyay soon badan oo sunna waa jira laakiin soonka bishani waa soon waajiba weeyaan goorta soonka la yimaado oo sida aan sheegnay waxa laga soomayaa cunto kaliya ama ahan waxa weeyaan wax kasto Ilaahay ka xarimay in laga soomo in sabarka la barto in dulqaadka la barto in lagu dadaalo in qofku uu quraanka la yeesho cilaaqo fiican maadaama bishani bishii quraanka ay tahay sida Ilaahay leeyahay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda marka bishan quraanka yani qiraa'adiisa kaliya ma ahane hatta quraanka hanuunkiisa iyo tilmaamihiisa in qofku wax ka fahmo dheeraad ah inta hore u taqaanay ama aad sameyn jirtay hadii qiraa'adaadana waa badinaysaa fahamkaagana waa badinaysaa insha Allah taala quraanka hanuunka ku jira iyo maaragtay waxa ku jira oo noloshaada saameynaya in markaas ay ku ziyaadaan baa la rabaa tan kale waxa weeye in lagu dadaalo in dadka loo ahsaan falo oo dadka muslimiinta gaar ahaan hadda abaaro iyo baahiya jira meel badan ka jira in dadka loo ahsaan falo oo dadka maadaama la soomahayo la iska warqabo oo dariska laga warqabo oo qaraabada laga warqabo oo dadka baahan maxaa ku loo ahsaan falo ayaa runtii maxaa ku bishan si gaar ahaan in nafta la xakameeyo oo khilaafaadka iyo buuqa siyaasadeed oo hadda Soomaali ahaan ka jira oo hadda rag siyaasiyiinta ay balansan yihiin magaalada ay joogaan lafteeda darsi bay noo tahay in bisha ay ku soo aadana waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay noqoto fursad lagu xalliyo wax kasta oo dadka ka maartaan kala fogeynaya
oo dadka qulubtooda dhaawacaya. waayahay arrintaa aada soo hadal qaaday ee ah khilaafaadka siyaasiga ee jira iyadoo dabcan lagu jiro bishaan barakaysan wadahadalla ayaa bilowday arrimaha siyaasadana aad ayaa looga hadlaya marka siyaasaadkaasi in laga hadlo oo dad wax laga sheego oo waxyaabo warar aan jirin mararka qaar la faafiyo mararka qaar qolyo gaara si gaara loo beegsado arrimahaasi ka waran soonka wax ma yeeli karaan horta soonku runtii waa cibaado maarata qof nadiif ah ayay noo soo saaraysaa oo ay kow ka yihiin dadka siyaasiyiinta siyaasaddu maaragtay maxaanku rahaa nooc maaragtay dhagar ah ama nooc waxqarin ah ama nooc laba wajiilina kama marna laakiin qofka muslimka sooman waxaa la rabaa in ay siyaasadiisu tahay siyaasad nadiif ah oo la oran karo siyaaso yani qof maxaanku rahaa sirma qaba ah ayaa soonku noo soo saarayaa oo nadiif ah oo wax uu muujisanayo iyo wuxuu ku hadlahayo iyo wax u qarsoon ay is leeyihiin baa loo baahan yahay tan kale dadka Soomaaliyeed guud ahaan dad ma runtii lagu imtixaanay hadalka badan iyo maalayacniga iyo warka aan la hubsan weeye marka in warka beenta la iska ilaaliyo dacaayada la iska ilaaliyo dadka aan lagu been abuuran dadka aan la kala geynin bariyahan dambana dadka maaragtay baraha bulshada isticmaalaya oo ka mushtarahaya inay hadalka ay maaragtay sheegaan ama inay xataa hadal been abuuraan ayagoo u yeelaya cinwaano iyo teetalo soo jiidasho leh sida hadal maaragtay degdeg ah iyo war culus iyo waxa lamida bay akhrinayaan oo aan caadi ahayn aan sax ahayn marka waxaa loo baahan yahay in maxaanku yiraahaa aan maaragtay aadaabta ramadaanka ala nimaadno nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiskuu ku yidhi من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قفك أن كتجين هذا الكبينتا يشهد زورك يمحنكرا وحلمتك قفك أسئلة وحدنا كمالها إنه كتب عنتدي سعبتانك وحدنا لجمالها وحلو جيدي إن أهدي قف مارت لقى أمان هلا هيو مركه هربا مارت وواجب لكن بيشان سيجارة إذا نقطيد مسلم لقى أمان هلا هيو afkiisa adigiisa baa loo baahan yahay waayahay arrimaha bulshada waan u imaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sheekh waxaad xustay waxyaabo badan oo loo baahan yahay dadku inay xoogga saaraan bishan oo ay uga faa'iideystaan salaada markaynu ka hadalno taraawiixda ayaa la tukadaa taraawiixda lafteeda dadku inta badan waxaa la yiraahdaa maalmaha hore ayay xoogga saaraan qaarkood halka qaar badan oo dabcan dhamaystana ay jiraan marka salaadahaas oo kale muhiimadda ay u leeyihiin dadka muslimiinta ah in la tukado oo xoogga la saaro arrintaa bal ka waran runtii salaada waa rukniga labaad oo islaamka bay ka mid tahay gaar ahaan salaadaha waajibka hadda waa sheegno adaaba sheegay laakiin bishan waxay la gaar tahay waxa loo yaqaan qiyaamka ama taraawiixda bay la gaartay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay maqaama ramadaana iimaana wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofkii ramadaanka tukada asagoo ay lillaah ka tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar kaga raba qofka dembigiisa waa la dhaafaa marka in lagu dadaalo qiyaamka ramadaanka waa shay laga maarmaan ah oo aad loogu baahan yahay maarta hadda dadkuna marka qaarkood way iska xiiseeyaanoo marka hore waa la soo yaacayaa kadibna xoogaa waa la daalayaa marka inaan la daalin baa la rabaa gaar ahaan cibaadada meelaha kusii dhammaanayso ama maaragtay baryaha dambe ayay sii macaan tahay marka maaragtay qofka inuu sabraada rabaayo uu ku dadaalo maxaa yeelay leylatu qadriga oo kale iyo habeenada fadliga leh meesha ku jiraan lama sheegin waa la qariyay sida loo badan yahay si qofku u dadaalo marka habeenadaas oo dhan in la dadaalo rabaa badana taraawiixdu hal saac iyo wax la mid ah kama badna iyo maaragtay hal saac bar meelahaas marka in la tukado oo lagu sabraa la rabaa oo qofku waliba maaragtay maxaan ku qaari fiican iyo maaragtay oo cod fiican leh oo ku raaxaysanayo oo ka daalaynin hatta wada raadsan kara oo lafteedu ma lama diidin qofku inuu maaragtay imaam fiican iyo qaari fiican iyo masjid fiican uu ku tukado soo salaad ugu raaxaysto marka salaada lagu dadaalo maxaa yeelay ayadoo la tukado qiyaamkeeda la yimaado dambi dhaaf baa lagu helayaa insha Allah taala waana sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sunnadii saxaabadiisa iyo khulafaa raashidiinta weeyaan waayahay sheekh waxaa jira dad inta badan xilliga la sooman yahay waqtiga ku dhumiya waxyaabo sida inay game ciyaaraan ama laadhu iyo waxyaabaha la midka ah ama meelaha fadhi ku dirirada ah si waqtiga u dhamaado tusaale ahaan qofkii wuxuu sugayaa afurkii waxa laga yaabaa inuu ku sugo in
uu waxyaabahaasi sameeyo waxaa laga yaabaa inuu suxuurtii ku sugo waxyaaba sidaasi la mida oo waxyaabaha inta badan dhalinyaradu ay u badan yihiin sida la sheego marka arrimahaasi ka waran saameyn ma ku yeelan karaan qofka cibaadadiisa iyo si gaara soonkiisa runtii sidaa a sheegtay weeye dadku maadaama la sooman yahay waqti xoogaa dheeraadaha soo baxa marka dadka qaarkood waqtigaas inay ku lumiyaan waxyaalo badan oo aan sax ahayn oo aan cibaado ahayn ama dembi ah ayaa dhacda qaarkood waaba iska seexdaanba oo qaar xataa salaadaha ka taga marka qaarkood waa dhacaysaa dadka qaarkood maaragtay sida ay sheegayso turub ama shax ama laandhuu ama maaragtay isboorti la daawado iyo waxa lamida baa lagu lumiyaa horta waqtigu sidiisa waqtigu waa qaali oo maaragtay maxaan ku oraa waqtiga ilaahay lagu caabudo waa qiimihiisu leeyahay oo hal kelimad oo aad tiraaho subxaana allaahi ah ama alxamdu lilaahi ah ama qur-aan la akhriyo ayaa ajarkiisa aan la soo koobi karinin marka waqtigii ajarka la heli lahaa in lagu lumiyo waxa maalayacni ah oo ama dembi ah ama maxaan ku oraa maalayacni oo maaragtay dembi ah u dhow shay munaasaba maaha marka bishaan bishii cibaadada weeye marka qofku inuu nasto waa la rabaa qofku inuu maxaanku cibaadada isku diyaariyo waa shay ku bannaan laakiin in maxaanku waqti lagu lumiyo wax maalayacni ah oo dhici kartaba maalayacni keliya ma ahane maxaanku rahaa hadallo xun iyo marka qaarkood aflagaada ka imaan karta marka qaarkood in dadka maxaanku wax laga sheega ka imaan karta marka xataa cayaar keliya ma ahane nooc maaragtay laqwi ah laqwigana dadka mu'miniinta ahi inay ka cararaan baa la rabaa waladiina hum cani laqwi mucriduun baa lagu tilmaama muminiinta laqwiga kuwa ka jeesta weeyaan marka bisha ramadaan bil xurmala weeye marka xurmadeeda in lagu lumiyo wax xaaraan ah ama lagu lumiyo wax maalayacni ah ama qofka markuu cibaadaysan lahaa oo ku lumiyo wax dembi ah shay saxa maaha waxaan baraarujinaya maarata marka qaarkood dad waxaa jira maarata xiiseeya arrimaha sportiska oo kale oo ku oranaya koobkii ramadaan baan qabanayna bay ku leeyihiin ramadaan maarata aan koob ma laha ramadaan bil cayaar maaha bil cibaado weeye marka qofkii awood hay energy hayaa enerjigiisa ku cibaadaysto qurahan ku akhriyo maxaa yeelay kubadda haddii bar la galo la cayaaro kubadda isku dhac iyo maarata iyo laad iyo qof wax laga sheego iyo qofkoo naxa iyo qofkoo xanaaqa iyo qofkoo maaragtay kama marna marka qofka mashaacirtiisa qofka dareenkiisa waa cibaado marka qofka dareenkiisa in la geliyo waxaa munaasab ah bisha ramadaan shay sax maaha waayahay sheekh waxaa jira dad aan bisha barakaysan soomi karin sida dadka waayeelka ah dad xanuunsan oo xanuuno la nool sida xanuunka macaanka hooyo nuujinaysa ama hooyo uur leh dadkaasoo kale bishan maxaa iyaga ay samaynayaan haddii mararka qaar aysan qaarkood soomi karin qaarkood laga yaaba haddii ay soomaan xitaa inay dhibaato kala kulmaan runtii diinteena waa diin raxmo weye ilaah subxaana watacaala diinta wuxuu nagu waajibiyeyna wuu nagu waajibiyey maca daalika fursado iyo naxariis baa maar la socota qofkii marka aan soomi karin wax keenaba ama qof jiran ha noqdo ama qof ha noqdo musaafir ah ha noqdo qofku jaanis kale ayuu u dibdhigan karaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaam ukhar qofkii marka musaafira ama jiran maalmo kale oo kuwii u ka tegay u dhigma oo mar kale ah ayaa u furan bay aayaddu leedahay marka dadku waa laba nooc weeyaan dadna waa dad hadda xanuunsan ama hadda mashquul musaafir ah laakiin jaanis kale helaya kuwaas hadda way iska afurahayaan jaaniska kale oo soo mari doona insha allahu tacaala ayayna soomahayaan qofka xanuunsan markuu biskooduu soomayaa kii musaafirka ahaa markii musaafirka uu ka dhammaado ayuu soomahayaa gabadha uurka lahayd markay dhashay ay soomaysaa wahaakada marka waxaa weeye yani qofkii cududaar lahaa cududaarkiisuna dhammaanayo markuu dhammaado cududaarkiisu ayuu soomahayaa laakiin dadka cududaarkoodu joogtada uu yahay sida qofka cudurka joogtada ah aan laga biskoonayn qaba oo dhakhaatiirtu ay kula taliyeen inuusan soomi karin dhakhaatiirtu waa in ahaa dhakhaatiir lagu kalsoon yahay oo maarata cilmigana yaqaana maarata dad lilaahina ah dadka noocaasa ama qofka duqoobay oo maaragtay aan soomi karin oo aan rajada lahayn kuwaas waxaa weeyaan ayagu maadaama aysan soomi karinin oo fursad aysan soo maraynin ayagu kafaare la imaanayaan kafaaradaasoo ah bisha soonka intay noqoto 29 ama 30 ha noqotee maalintiiba hal qof inay quudiyaan ayaa laga rabaa oo fidya la yiraahdo ama kafaara la yiraahdo marka quudintaasi badarna waa ahaan kartaa qalalan qof oo maaragtay la dharjiyo hal marna waa ahaan kartaa
marka saxaabada qaarkood waxay samayn jireen 30 qof ayuu qofku hal mar u sameynaya cunto fiican ay ku afuraan oo ku casheeyaan inta uu samayn karaa ama haddaa rabtid maalintiiba hal qof ayaad wax siin kartaa marka qofka noocaas oo aan rajada lahayn oo soonkiisa aan jaaris u helaynin ama ha noqdo asaga oo maaragtay maxaan ku xanuunsan iyo waxa la midka ah qofkaasi kafaaru sameynaya qofka xanuunsan waa noocaas qofka duqoobay oo ka daciifay soonka aan soomi karin asaga waa noocaas weeyaan laakiin qofka duqoobay oo aan saasaqay ama isku darsoomay oo aqligu ka tegay asaga ma laga rababa waayahay waa mahadsantahay sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan waxaa soo hadal qaaday arrimaha baraha bulshada iyo in dadku ay aad u isticmaalaan si gaara da'yarta ayaa aad ugu badan oo waxaa la yidhaahdaa dhibaato badan ayuu keena oo dalalka qaar oo xeer waxay gaareen ay xitaa mamnuucaan marka baraha bulshada ka waran habeenkii tiktok qaara live soo galaya dad waxa kaga sheegaya dada ku dagaalamaya dada xitaa mararka qaar arrimo qabaa'il uga hadlaya marka arrimahaas oo kale soonka maxay u dhimi karaan runtii sidaan soo marnay yani maxaan qofka muslimka markasta soon iyo soon la'aan qof mas'uul weeyaan wuxuu ku hadlayo mas'uul buu ka yahay markii ilaahay uu nicmo la siiyo ilaahay uu qalab noo soo kordhiyo aan ku hadli karno in sida saxda loo isticmaala ayaa loo baahan yahay in si khad loo isticmaalo maaha laakiin waxaa mushkilad dad aan maaragtay xilkas ahayn oo waliba maaragtay lacag ku raadinaya ayaa ku badan baraha bulshada oo aan ku raadinaya maaragtay yani inay dad badan yeeshaan ama dad badan ay maaragtay follow noqdaan ama waxa la mid ah marka waa mushkil runtii in meeshii lacag laga sameeyo horta waa mushkil ahba ayada imtixaan noqotay maca daalika dadka muslimiinta waxaa la rabaa inay iska ilaaliyaan inay maaragtay wixii ilaahay siiyey ama codkarnimo ama fasaaxad ah ama qalab ah ama warbaahin ama jaanis ah qof inuu isticmaalo si khaldan waa nicmadii oo si khaldan loo isticmaalo weeyaan nicmadana waa la isweydiinaya uma latus'aluna yawmin cala naciim marka nicmada waa lagu weydiinaya nicmadaasi ha noqoto maskax iyo maal ha noqoto warbaahinta maanta lagu fududeeya ha noqotee marka nicmada in si sax loo isticmaalo la rabaa marka dee qofka sooman inuu khalad u isticmaalo nicmadii oo asagoo sooman ummaddii uu kala geeyo ama ummaddii uu caayo ama ummaddii isku diraayo waa shay khatara weeyaan weliba waxa meel dheer gaalaya weeyaan waxa dad gar ay maqlayaan maahan malaayiin baa maqlaysa isla markiiba meel kastay gaaraysaa marka hadalka noocan oo kale anigu sidaas wuxuu yidhi ma qof baa jira ku hadlaya kelimadii uusan ogeyn khatarta ay leedahay oo markaa meel fog gaaraysa oo aakhiro uu qofkaas ku shalwanayo naarta oo meel fog ku dhacayo marka hadalkii caadiga ahaa oo berigaas jiri jiray ayaa laga hadlayaa hadalka maanta tirada badan oo meelo badan gaaraya oo malaayiin saameynaya oo boqolaal isku diraya waa kasii xag jira marka in la iska ilaaliya la rabaa oo baraha bulshada loo isticmaalo si wanaag loo isticmaalo dadka khayr loo sheego dadka wanaag la furo mida laga reebo dadka la isku soo dhaweeya loo baahan yahay in dadka la isku diro shay sax ma aha soon iyo soon la'aanba waayahay sheekh bashiir abaara ayaa dalka ka jira xaalad adag ayaa ka jirta dadkii waa biyo la'aan waa cunto la'aan xoolihii qaarkood waa ka dhammaadeen bil barakaysan waa la galay oo waa lagu jiraa dadka muslimiinta ee waxhaysta iyo mas-uuliyiinta iyo maamulada iyaga laftooda markaan maxaa laga doonayaa markaan oo kale maadaama dadkii inta badan miyiga iyo tuulooyinka ku noolaa ay wajahayaan xaalad adag oo abaartu ay badday runtii waa su-aal muhiima weeyaan ramadaankaanu wuxuu ku soo aaday ayadoo dalka soomaaliyeed abaar soo jiitamaysay oo roobo badan la waayey ama ay yaraayeen buu ku soo aaday ramadaankan haddana wuxuu ku soo aaday ayadoo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ay mashquul ku yihiinba waxyaalo aan maxaanku rahaa istaahilin oo khilaafaad waxa lamid ah marka waxaa leenahay ummadda in loo gurmadaa la rabaa ummadda in loo soo jeesto nolosheeda loo baahan yahay oo kii mas-uul ahaa oo ummadda u dhaartay inuu maaragtay xilkeeda u qabanayo iyo kii kale uu haystaba waxaa la rabaa in ummadda baahidu waa darantaha mar kasta laakiin baahida ramadaan baa kasii daran weliba haddii baahidu ay noqoto biyo la-aan ay noqoto oo biyihii la cabi lahaa ay la waayo ama xoolihii inay dhintaan ay bilaabeen oo maaragtay baaba-aan dadkiina marka ay maxaanku runtii ay dhibaatoonayaan waxaa loo baahan yahay in laisku gurmada la rabaa oo weliba maaragtay guddiyaal caam ah ama guddiyaal khaasa la sameeyo oo gobol iyo degmo la iskugu leexdo oo dadka maaragtay qurba joogta sidii runtii si gaara baan ula hadlayna ayaga ayaa markasi dadaali jiray inay dadaalaan baa la rabaa ay soo gurmadaan oo qofku maaragtay wuxuu awoodo ay cidda uu garanayo uu gaarsiiyo
wuxuu gaarsiin karo dadkana hadda cabashadooda biyaha ayaa kow ka meelo badan sida ay noo soo gudbiyeen hay-adda maaragtay la tacaalidda musiibooyinka taqriiban ku dhowaad maaragtay dhowr iyo 40 degmo ayaa halis ku jira 44 maaragtay ayaaba maaragtay aad u dangerous u ah oo khatar u ah marka dadka baahan waa badan yihiin biyo la'aantu waa badan tahay in la soo gurmadaan rabnaa soo jeedinaynaa oo la is abaabulo insha Allah taala oo la is kaalmeeyo bisha Ramadaan si gaar ah ay xaq la isku leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu qof afuriya ajarkiisa oo kale ayuu leeyahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo qadka si toos ah uga jiray magaalada Muqdisho waxana uu ka hadlayay fadliga bisha barakeysan gaar ahaan tobanka hore iyo wax dadka muslimiinta laga rabo daawadayaal barnaamijkii waa naga inta haddii Allah uu dal yiraahdo bisha barakeysan inta lagu guda jiro BBC-du waxay daawadayaasha iyo dhageystayaasha ugu tala gashay inay u soo gudbiso barnaamijyo la xiriira bishan barakeysan iyo khayrkeeda sida iyo nabadgelyo